madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug ayaa waxa ay ciidsiin u sameeyeen 100 caruur ah oo agoon ah oo ku dhaqan magaalada Gaalkacyo kuwaasi oo aabayaashood ku waayay dagaaladii halkaasi ka dhacay. wariyahayaga Sagal Siciid Taakilo ayaa faafahinta warkaasi noo haysa. munaasabadani ayaa ahayd mid lagu ciidsiinaya caruurta agoonta iyo danyarta ee magaalada Gaalkacyo. caruurtaas oo gaaraysa 100 caruur ah waxaana soo qaban qaabiyay madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug. ugu horeyn xafladda waxaa ka hadlay gudoomiyaha madasha nabadda iyo isdhexgalka gobolka Mudug Qorane Maxamed Cabdilla isagoo faahfaahiyay barnaamijka ciidsiinta agoonta ay sameeyeen dhalinyaradu. ujeedka xafladdan wuxuu ahaa ciidsiinta ilmaha agoonta ah. waxaan ugu talagalnay 100 caruur ah oo agoon ah kuwaasoo la siinayo qofkii $25. runtii waa qadar aad u yar waqtiga ku soo bixiseen iyo inta ay laag tahay, laakiin waa xasuus walaalnimo weeye. ka badan bay tegi doontaa ilmaha yarka agoonta oo maanta halkan isugu keenay. sidoo sheekhu noo sheegay waxa la rabaa ilmaha in lagu aawiyo islaamnimada, darsinimada iyo walaaltinimada. nabadoon Cabdicasiis Yuusuf Xaarin oo kamid ah nabadoonada magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa sheegay in uu la shaqeyn doono dhalinyarada lacagna ugu deeqay agoonta iyo waliba danyarta. jazaakumullahu khayr baan leenahay, wax fiican baad samayseen, Allah idinka abaalmariyo. hal ogaada raggii Soomaaliya dawladnimada gaarsiiyay juhdiga leedin galiyay lama gelin, aqoonta aad leedihiin ma ay lahayn, tasiilaadka aad haysataan ma haysaneen. hadda aniguna waa idin codsanayaa inaan ka mid noqdo guddigana ka mid noqdo. waana idin la shaqeynayaa, haddana $50 baan ku deeqahayaa. gudoomiyaasha ururada haweenka gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug Ruqyo Aadan Maxamed iyo waliba Maymuun Cali Nuur ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay munaasabadda ciidsiinta caruurta agoonta iyo danyarta ee magaalada Gaalkacyo kuwaasoo aabayaashood ku waayay dagaaladu ka dhacay magaalada Gaalkacyo. aad baan soo dhaweynayaa agoontan maanta lagu ciidsiinayo magaalada Gaalkacyo oo labada dhinac waa ka soo shaqeeyay dhalinyarada madasha. waxaan hadda ka horbalay oo ka baahnaa qofkuna waxa fiican inuu ku noolyahay wax xasanaadka ka shaqeeyo oo wax kale ka shaqeeyo markay waqti yar bay haysanaa in walba wax fiican oo xasanaadka oo maalinta bacad kala taagan yahay ka taageeraysa inaynu ka shaqeyno waa wax horay loo baahnaa. haddana waa in ku dhaqaaqaynaa. ka bacdi waxaa farxad ii ah madasha gobolka Mudug isku dayga ay sameeyeen. hadda isku day waa dhaafeen soo bandhigid waaye. qofba waxa la nin waliba wuxuu qaban yaqaanaa loo soo qadimayaa. maanta waxay soo bandhigeen wax lagu farxaa oo adduun iyo aakhiraba qiimo kale. marka waxaan leeyahay ajirkiina allaha lama laabo ayaan leeyahay dhalinyarada madasha isdhexgalka gobolka Mudug. ugu dambeyntii waxaa soo gabagabeeyay munaasabadda ciidsiinta caruurta danyarta iyo agoontaba gudoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo Farxaan Gafa. waxaa farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo xafladda tan sharafta badan oo looga farxinayo agoonta magaalada